بسم الله الرحمن الرحيم وكورس كاني كوسابسنا لينكس 10 كيسي افراد waxay la socodsiinay 10 kan anigu Ahmed Kayd Ahmed Ibrahim waxaad nagala soo xiriiri kartaan website-kayga salsoftware.com ama page-kan Facebook ku leenahay Sal Software si gaar ah waxaad nagala soo xiriiri kartaan ahmedsaid01@gmail.com waxaan kaga hadli doonaa 10 kan sida loogu duubo ama looga saaro software Ubuntu-geena inuu soo kicinayna waxaan leenahay Claire halkan terminalka aynu isticmaalayna waan idin sheegay markii hore 10 horeeyay waxaan idin sheegay inaan ku dhufan karno software Ubuntu software deedna aan halkan kaga duubi karno halkan aynu kaga duubi karno laakiin software-da badankooda marka search ku sameeyay halkan kama helaysid badankooda marka waxa lagu duubi kartaa software si fudud oo isticmaalaya terminal saan idin sheegay Ubuntu haddii aad doonaysid Ubuntu inaad isticmaasho u soo diyaar garow inaad sidoo kale isticmaasho terminal commands markaan saynu software ugu dubno imka VLC oo kale saynu ugu dubno tusaale ahaan waxaan leenahay sudo oo taagan super user do apt get install VLC marka apt get waxay taagan tahay advanced package tool minus get ay taagan tahay marka waxaan leenahay install VLC install markaan aan weydiinaya password-kaaga password-ka ayaan gelinayaa password-ka markaan geliyo wuxuu ku duubayaa VLC xusuusin computer-kaaga waa inuu internet-ka ku xidhan alright VLC-dii way ku duubantay marka waxaan sameeynaa saan soo kicino ayr baan ku qoranaa halka VLC haday ku duuban tahay way soo kacaysaa sidaas jeedida VLC way soo kacday wayna ku duubantay successfully ay ku duubantay waxaan sameeynaa marka waynu ka saaraynaa VLC waynu aragnay sida loogu duubo waxaan sameeynaa inaan ka saarno marka koowaad waxa horta jira imka software-ku aan garanaa VLC magaceeda haddii aadan garanayn software-kan aad doonaysid inaad ka saarto magaciisa sida uu qoran yahay sax ah waxaad ku qoraysaa halkan debug deedna waxaad leedahay minus list software-da ku jira computer-kaaga ayuu ku soo qabanayaa intay leeyihiin halkan weeye magacoodii kulli halkan buu ku soo daadinaya imka VLC-dan ku duubaynay imka waata waxaan leenahay Claire waxaan leenahay si aan uga saarno uninstall aynu sameeyno waxaan leenahay super user do deedna waxaan leenahay apt get remove meeshaan markii hore install ka isticmaalno waxaan isticmaalnaa remove VLC saad u jeedo remove na ayuu ku leeyahay do you want to continue deedna waxaan leenahay yes oo y baynu gelinaa ama ya deedna waxaan leenahay enter automatically uu ka saaraya markiiba yar baad sugaysaa deedna uu ka saaraya alright uu ka saaray haddaan imika VLC halkan ku qoro waan inta yiraahdo kuma duubna waa kaas waxaan soo qabanay initialization failed sababtoo ah kuma duubna oo kuma jiro software-kan waxaan filayaa casharkan inaad si aan fahanteen casharkan ku xiga waxaan leenahay la socod wanaagsan